kusoo dhawaada channelkeena. Maanta waxaan idin wadnaa muuqaal yar. Muuqaalkan waxaa soo diyaariyey injineer Cabdifataax Maxamed Cabdi. Marka hore channelka subscribe inoo saar, muuqaalkan inoo share gareey si uu dad badan u gaaro. Mahadsanid daawasho wacan. Assalaamu calaykum. Waxaan muuqaalkan ku soo qaadan doonaa sheekada ninka guuldaradiisa guul isku bedeleen. Waa anigoo ah Cabdifataax Maxamed Cabdi. Elon Musk waa ninka iska leh shirkadda Tesla iyo SpaceX. Sidoo kale waa ninka ugu taajirsan adduunka. Inaad guuldareysato maahan ceeb, balse guuldaradaas waxay ku horseedaa tijaabo cusub. Waana kan ugu dambeyn aasaasay shirkadda SpaceX oo maanta dunida oo dhan ka wada hadlayaan. nolosha qofka bini'aadamka ah waxay ku saleysan tahay guul iyo guuldaro. 2008 ma ahayn sanad u wanaagsan Elon Musk, taasoo shirkadiisa hoos u dhac zaid ah ku timaaday. Balse 2012 waxay shirkadda SpaceX hawada u dirtay gantaal lagu magacaabo Falcon 9 oo dayax gacmeedyo dhulka ka qaaday. Waana shirkad shakhsi ah tii ugu horeysay ee tijaabadan samaysa. Sidoo kale Elon Musk wuxuu aasaasay shirkadda lagu magacaabo Tesla, taasoo soo saarta gawaarida korontada ku shaqeeya. waana shirkadii ugu horeysay gaari koronto ku shaqeeya samaysa. Maanta AI waxay maray in qof bini'aadam ah wuxuu qaban lahaa aan loo baahan. Kani waa muuqaal cajiib ah kaasoo dunida oo dhan ka wada yaabeen, balse ay niyad jab u tahay dadka hadda shaqadooda tahay. Waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan.